ciidanka dowladda qaranka inuu shaqo shaqadii komishanka maamulnaagu u qaban jiray shaqo kamid ah aba waajibaadkiisa kamid ah oo ah runtii kormeer iyo qiimeyn uu ku sameeyay hay'addan ballaaran ee dowladda qaranka runtii shaqadaan maanta qabanay warbixinteeda waxaa la soo wadaagi doonaa cid ay khusayso ugu horeyso muxuu ahaayay hay'addan dowladda amba ciidanka dowladda qaranka maamulkiisa waxyaalaha wanaagsan ay qabteen waan ugu mahadnaqaynaa waanaanu ku hambalyeynaa waxyaalaha ka dhidhiman runtii ay ka gaabiyeen waxa oran karnaa wax ka xidhan amba xagga xukuumadda oo aynu iska ognahay dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba xukuumad ahaan intay leegtahay haddana ciidanka dowladda muddadii uu jiray ee laga soo bilaabo 2014kii amba 2014kii ilaa imika shaqooyinka uu qabtay runtii waxaan filay dadweynaha reer Soomaaliland si guud way uga dharagsan yihiin taliyuhu iyo muxuu ahaayay saraakiisha kale la joogtayba warbixin fiican bay naga siiyeen halkay wax marayaan iyo qorshahooda sanadka iyo muxuu ahaayay waxa ku tala jiraanba qaranku kulay komishanku waxyaalaha ugu waaweyn oo ka shaqeeya waxa kamid ah qiimeynta hay'adaha dawladda oo marka hore ku sameeyo baaritaan dadweynaha soo bandhigo heerka ay ka taagay maamul wanaagga isla markaa la isuursanaan maayo runtii noqon mayso in mar walba kormeer iyo qiimeyn la sameeyo waxa noqon doonta in la sheegay yaa wax qabtay oo qaranka muxuu ahaayay wax u qabtay oo uga faa'iideeyay wixii uu xil saaraa sida ay u qabtay waxa kale oo la sheegi doonaa cid ka gaabisa marka dadku dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan qaranka marka ku maray doono kormeerka runtii arrintan ku sameeyna waa taa iyadoo la sameyn doono maamul wanaag ahaan ciddii la abaalmarinayo oo madaxweynaha qaranku marka loo gudbin doono cidda mutaysatay abaalmarin la siiyo iyo cidda kaleba runtii aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay maanta ka dhimaadno waana wada shaqeynta waana xoojin doonaa dowladda waxyaalahii ay naga dalbadeen ay tahay inaan la qabanana diyaar baan u nahay oo komishanku ku soo celin doona hadii la warbixinta iyo reportka markaan wadaagno kadib wixii ka soo baxay kale ee shaqana waan wada wadaagi doonaa hadii la bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo sabtiya bishii 12 bishii 9aad waxaan soo booqday komishankii maamul wanaaga gudoomiyihii iyo kooxdiisii oo isla socota marka ugu horeysa waxa noo sharafa in noo yimaadaan oo aan ku soo dhaweyno xaruntii weyneed ee ciidanka dowladda qaranka runtii si fiican ba arintu nagu dhamaatay wixii warana waanu siinay wixii faahfaahina waanu siinay waxyaabo fara badan oo waxa jira naga yara maqnaa laakiin iyagu noo kabi doonaan taana diyaar boonahay inay nagu kabaan qarankana waynu wada shaqeynaa kooxba meel bay wax ka qabataa marka ilaahay waxa nagu duceynaa in koox walba sidii loogu talagalay inay u shaqeeyaan wixii ka dhimanna in komishanku ay nagu biirin doonaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya yaani noqonin maxaa la yiraahdaa safarkii ugu horeeyay hadii jeer inaan iska qabano inaan wada joogno inaan wada shaqeyno ayaan filanay hadii la ka dhigo insha Allah wad mahadsantiin